كفضليسو نظام وبنجيga dhexe ku amaahinayo kharashaad kala duwan dhalinyarada la timaada hal abuurka ganacsi qodobka labaad wuxuu noqonayaa qofka ganacsada marka laga hadlayo doonay inuu bilaabo ganacsi si uu caqabad uga gudbo waa in marka hore uu yeesho vision qofka hadii aanu lahayn wax vision ah ama yaani aragti ganacsiyadan lahayn aad bay ugu adkaan doontaa inuu ganacsi bilaabo qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa in dhalinyarada loo sameeyo barnaamijyo lagu dhiirigelinayo inay ganacsi bilaabaan way dhalinyaradii cabsi badan baa ku jirta dadka marka leegiyo ma lihin dhamaanteen ay noqon ganacsidayaal oo waxa weeyaan shaqadaas dhamaanteen ma hayna wada qabano laakiin waxa jirta in badan oo ma garanaysa jecel oo doonaysa inay ganacsi bilaabaan oo ku hamiyeen ganacsi bilaabaan amba se bilaabayba oo waxa weeyaan startup koodii ku jira marka in la sameeyo barnaamijyo dhalinyarada laftigooda lagu dhiirigelinayo qaab noocee lagu dhiirigelinayo xog baa lagu siinayaa wax lagu siinayaa tababaro qodobka saddexaad ee la tahay inuu xal u yahay waxa weeyaan in qofkii uu yeesho skills uu yeesho yaani xirfado uu yeesho hadii degree jaamacadda ka diyaarisay oo doonaysay inaad ganacsado noqoto degreegaas inuu yahay degreega yaani ganacsiga how malayn in ganacsi hadaad barato noqonaysid ganacsade waayo boqolaal qof aynu aragno business administration ka baxay iyo economics-ka balse laakiin hadda ganacsi bilaabeen marka waxay hadii aad ganacsi doonaysid ganacsigu wuxuu kamid yahay waxyaalahan kaaga baahan shahaadooyinka laakiin kaaga baahan xirfadaha kale waayo waxa jira the entrepreneurship ka kale markaynu ka hadlayno tababaraad ka qaadan karaysa yaani qaabka yaani hal abuurka ganacsi loo sameeyo waxyaalaha u baahan yahay ganacsigu marka in barnaamijyo noocaas la sameeyo lagu dhiirigelinayo hal abuurada yaani dhalinyarada doonaya inay hal abuur ganacsi la yimaadaan qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa in uu qofku isku xeero asxaab ganacsata oo ganacsiga jecel waxa la yiraahdaa maama baa jirtay tiraahda hadii aad 5 doqon la saaxiibto adiguna doqonka lixaad baad noqonaysaa hadii aad 5 gees la saaxiibto adiguna geesiga lixaad baad noqonaysaa macnaheedu tahay hadii aad 4 qof oo ganacsata aad la saaxiibto oo aad yaani meel noqotaa way fududaanaysaa in lacag iyagu ku amaahiyaan ay wax isugu ka dardaraan bas laakiin hadii asxaabtaadii aad isku jeebka haydan in aad wali la joogto doonaysa inaad ganacsi bilowdo iyada laftigeeda xataa waxa laga yaabaa inay waxa weeyaan ay ku dhaafisaba fursadihii kala network ku sameyn lahayn marka waa inaad qofku jeeb dhaama aad la saaxiibtaa tan macnaheedu maaha inaad danaysto noqoto laakiin tan macnaheedu waxa weeyaan shimbir walba shimbirkiisu la duulaa hadii aad doonaysa la dhahdaa inaad waxa weeyaan maamaaba waxay dad doonaysa inaad la duusho haadka ama gorgorka waxa weeyaan digaaga yaani aanad la joogin taa macnaheedu waxa weeyaan waa inaad ku dadaashaa inaad asxaab isku xirto wanaagsan xamsad kulaale waa maxay calaamadaha lagu garto qofka leh hal abuurka ganacsi hadii aynu soo koobno calaamada koowaad waxay noqonaysaa oo ka hadallo waxa weeyaan waa inuu qofku yeesho aragti ganacsi oo inuu doonitaan jiraan waayo hadaan doonitaan jirin cid ka saacidi karaysa waxa weeyaan doonaysa inaad samayso oo doonitaanku adiga ka imanin way adkaanaysaa calaamadaha lagu garto marka waxa kamid ah in qofkan uu leeyahay passion ganacsi uu ka dhex guuxayo ganacsi qodobka labaad inana isaguna waxa weeyaan waa in qofkan meel kasta uu maro waa arkaa fursado ganacsi oo ka jira salaano kala xaafad baan maraysaa xaafadda waxaad ku aragtay farmasiyo dukaano deetana waxa laga yaabaa inaan xaafadda ku oolin wax salaano kale la tacalluqa waxyaalaha asaasiyaadka salaano kale waxyaalaha inta badan isticmaal fast food ka la yiraahdo kale yaani meel waxa weeyaan cuntooyinka fudud kale lagu sameeyo amba ganacsi kale ka maqan marka qofkan waa in meel kasta uu mari karayo ama markasta yaani uu leeyahay curiosity like fadulnimo uu ku raadinayo fursadda ganacsi ee ka maqan halka uu joogo iyo meel kasta oo maro qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa in qofku leeyahay decision making yaani go'aan qaadasho marka ganacsiga laga hadlayo isbedel kasta oo la tacalluqa qofka bilaadanka doonaya inuu sameeyo kama soo hadho go'aan qaadashada marka inuu qofku leeyahay go'aan qaadasho calaamadaha kale waxa kamid ah inuu leeyahay leadership spirit يعني روح وجاهدين ولايه إنه قف كان أود ولايه هاي إن ودديو كلا دول معمول كرايو إنه دديو كلا دول هاجي كرايو إنه دديو كلا دول وحش يجي كرايو وياهي قف حتى بلادية وحش يجي كرايا علامات ضد ما يسوي حين قلنا إنه قف ياهي قف سلف متفيتنا يعني قف يسجل لفت جيسو أن وحنا يشبك يعني هي أن أودين عدين ومركب يشبان يستعجل قف يسوي ديري جلين كرايا قف وحويان ديجان كي عقبضة كهر يا رئيسنا ككني أي ديري جلين كرايان قدر كل بيانا إنه يهي قف حكة هي جناحسية وهي محل الحكم هي اليابة حلهم مكا إنها ساكنة شكر بن حسوستي وحوي أستاذكم مدة وذاك شكل له شيء حاجة جناحسية لا تعلق ده مددي أنا دانيرت هاي وقت جي كل أنا قلت جي دانيرت عسلتين سجيت شراء واسك جوانا هيوني وحويان
ayaa waxaa jirtay waxaanu ahayn intermediate baanu ahayn deetana inan ka mid a inamadan wada dhiga jirnay iskuulka laakiin isagu fasal naga hooseeyo laakiin isu duunahay ayaanu la yaabi jirnay suuqu kaariyun ku haysan jiray deetana maalin kasta humiliation ku sameeyay war ma waana tahay adigoo arday wax baranayo buug qalisitaad kolba kaariyon yar magaranaysa suuqa ay la joogtaan uu noo adkaystaa nima dhageysto uu naga fogaadaa anagu markaan helan chance ku helo akhraan u dirnaa waxa weeyaan dacaydina muddo markii ka soo wareegtay sanadii wuxuu sameeyay anagu markaa standard 7 baan ahay isaguna 5 buu ahaa muddo markii ka soo wareegtay waxaan aragnay ninkii oo sita mobilana anagu qaadan oo screen touch operate Chinese iyo codka la dheeraaya laga daawan jiray TV-yada iyo waan ku soo ururnaa sanad kadib aragtideedii bay isbedeshay inaanu hebelka xataa u soo tartano marka la horeeyay caawinay intaan u yeerano aanu la daawano waxa weeyaan mobile-ka u iibsaday oo ay isagu iibsan kari u goyn kari muddo kadib badan waxa dhacday ilaa 4 sano kadib 3 sano kadib anoo high school-ka ku jira ayaa anagu ismiinu xaafadii ka guuray ayuu ga soo baxay maalmaha ka mid gaadhin dhacda ayuun baa igu soo fayday buugtii university iskuulka soo raacay oo gelin dambe tatana waxa dhacday gaadhigi baan dib uga booday waan eegay daaqad waxaan ka arkay oo isla inaan kan mid sheegay tatana isagoo dhalacday nigu wariya Hamza ma inaad soo raacday ina marayaan ku sii qaado uu sii qaadayo intuu dhexda ku sii jirnay iga sheekay inuu guursaday waxa weeyaan inuu jagay iibsaday in ganacsigiisa uu balaaqay way wuxuu ogaa sidaan u hadidi jiray waqti kamada waqtiyada iyo halganka uu ku jiray isaga digasho kama yahay aw laakiin nin qalbi wanaagsan buu laazim ahaa laakiin maalinta waxaan dareemay saasan isku eegay waxaan arkay afar buug inaan sito haddana isagaan eegay yani nolosha ku sugan yahay yani anoo markaa ka xumay baa waxaan dareemay in qofka dhalinyartii haddii uu fishal leeyahay uu ka gungaari karayo anigu weli buug sito uu sito bugaagta laftooda dayna lacag ku sameeyo ilaan waynu dareemaynayaa qof kasta uu jecel yahay lacagtuna nolosha dee ku soconaysa la'aanteed ayaa waxaan ka fikiray waniyo muddada aad soo baranaysaa dad saaxiibka kaariyoon maalinta ag dhigan lahayd maanta waa waxa weeyaan heerkaas at least gaari lahayd ilaahay naxariistay inanka isagoo heer gaaray akhiran uu dhintay oo yani saacadiisi baa dhamaatay laakiin halka sheekadaas markasta waxaan ku xasuustaa muhiimadda ay leedahay qofka dhalinyarta inuu yeesho go'aan qaadasho taas keentay inuu go'aan yeesho in waxa weeyaan deegaanka ku aragtay waxa laga yaabaa afar qof oo saaxiibatiin inaad weydiiso ka qaaday ilaa heblow waxaan doonayaa ganacsi bilaabo ka hor madaxweynadiiba wali jaamacadii baad dhigtay wali iskuulka baad dhigtay waxbarashadu kaamicnaysa wax baranaya inaad part time job aad qabato oo laftigeeda aad ganacsi yar aad samayso ganacsiguna yaraanta ku wanaagsan yahay inaad samayso waayo yaraanta waxa weeyaan hadbi dar badan madaxa ka jaraysa waqtina wad haysataa mas'uuliyado badan kuma saarna marka kulli qodobka ugu dambeeya ahaa calaamadaha ku dareemi karayno waxa kamid ah qofku inuu noqdo qof unstoppable qof aan la joojin karin oo duruufaha ku hareeraysan iyo aadmigu waxay leeyihiin baan joogin aad iyo aad maasantii xamsad baaraad buu mahadsanyahay su-aashiisa saddexaad ee weydiinaya waxay tahay dhaqan noocee ayaa looga baahan yahay qofka ganacsadaha ah si uu markaa u horumariyo ganacsigiisa dhowr qodob ma soo ururiyay qofka hore inuu kalsooni yeesho oo uu yahay qof kalsooni leh qodobka labaad waa inuu network leeyahay waa inuu shabakad asxaab leeyahay oo sida ka horeysa waxaad ogsoonataa saaxiibka isku levelka tihiin marnaba kuma anfacay that's the reality marka run la doonayo way saaxiibka isku levelka tihiin sida uu jeer maratay uu jeer maray garaadka intuu leeyahay uu leeyahay marka markasta waa sababta lagu leeyahay inaad ku didaashaa waa inaad network lahaata network muxuu noqonayaa waa shayga ku bedelaya saaxiibka adigoon haysta oo macnaheedu ma aha la screening asxaabtaada oo heeriga anbaha ka tagin laakiin waxa waa inaad haysataa asxaab kale oo iyaga laftigoodu ka horeeya halka doonayso taagan at least ama gaaray iyaga waxaad ka helaysaa aragti baad ka helaysaa kufitaan badan oo ku sugaya dhibaatooyin badan oo ku sugaya ayuu qofkani soo maray dadna khibradiisa markuu kula wadaago ku siiyo information ku siiyo waad ka boodaysaa halkii uu isagu shalay tole oo ku dhacay waayo khibradu waxa la radaa waa bridge qofka uu saamaxa inaanu mar labaad ku dhicin halkii uu shalay tole ku dhacay marka waa inaad network lahaataa networkaas wuxuu kuu saamixi doonaa inaad fursado kala duwan oo ka helin aad heshid ganacsigaaga laftigiisuna uu ku kobci doono haddii aad ganacsigaagaas ku dhex jirtid laakiin aanad asxaab ganacsataa sameysan ama asxaab aad wax kale uga baahato لازم وفريسانيا ganacsigagaasi qofba qofku ka dadbadsi badan yahay ayuu ku horumarsan marka nolosha laftigeeda dhanka laga eegayo su'aasha labaad waxay qodobka labaad waxay noqonayaan qofku very humble noqdo qof yani isluubig badan oo shaqaalaha la shaqeynaya bicida la shaqeynaya soo qabsaday aan ku tacadiin oo aan dulmin waxa weeyaan aan iska weynaysiinin laakiin waa in dadka laftigooda si wanaagsan loo dhaqmi karayo oo la shaqeynayo iyo dadka laftigooda ay asxaabta yihiinba qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa inuu qofku yahay qof waxa weeyaan habdhaqankiisu aanu xumayn qofku hadduu habdhaqankiisu xumaado waxa weeyaan dabcigiisa iyo dadla dhaqanimadiisu xumaato
waxa weeyaan dadkii dhanba ka fogaanaya taasina waxay ku noqonaysaa caqabad shaqo kasta qabto iyo wax kasta qabanayo qodobka u dambeeya waxa uu noqonayaa inuu qofku uu noqdo qof awood u leh inuu dadyo kala duwan isku hayn karayo yani dadyo badan baa laga yaabaa in kula shaqeeyaan ama waxa weeyaan saaxiibtaan networkaaga qof tanaysta qof xaasida qof sidana yani inaad dadka isku hayn karaysa at least oo leedahay awood aad dadyo kala fikir duwan isugu hayn karayso taasina waxay kuu saamixi karaysaa inaad noqoto business leader aad noqoto oo yani hogaamiye ganacsi aad noqoto ganacsigaagaasina ugu guuleyso daawadayaal barnaamijkan ganacsiga iyo dhalinyarada waxaad kala socon kartaan labada TV MMTV iyo Sub News TV ood ka daawan doontaan maalinimadka berri amba habeenimada waxaan soo noqonaa su'aasheena ugu dambeysay ee shanaad su'aashu waxay tahay maxay tahay talada ugu dambeysay aad soo jeedinayso dhalinyarada jecel ganacsiga amba doonayna inay ganacsi abuuraan waxa jirta dhalinyaro fara badan waxay ku aaminayaan iyagoo jaamacadaha dhigta ama iskuulaadka dhigta ama goobo waxbarasho dhigta kale inay ganacsi bilaabaan waxa la marka si aad ganacsi u bilowdo marka hore waa inaad shaqeysaa waxa laga yaabaa family-gaagu inaan awoodin inuu lacag siiyo waxa laga yaabaa inaanad helin dhaqaale kale oo meel kale ka soo galaya marka shayga hore waxa waa inaad sameysaa waa inaad shaqo bilowdaa shaqo si aad u bilowdo waxaad u baahan tahay skills dheeraada amba yani oo ka duwan waxbarashada tooska ah ee baranaysa jaamacadda amba iskuulka salaana kale hadii aad barato editing oo kale meel kala duwan baad ka shaqeyn karaysaa amba as a freelancer baad u shaqeyn karaysaa haddii aad barato allahumma salli ala maxamed xirfadaha la tacalluqa xagga dumarka iyo qurxintooda iyo waxa weeyaan naashnaashkoodana waxa weeyaan awood baad u yeelanaysaa inaad adiga laftigaaga shaqeyso marka waxa shayga ugu weyn waxa weeyaan you have to create a value yani waa inaad sameysaa qiimo waa inaad u sameysaa naftaada value waxa ku sameynayana waa aqoontaas ta ugu muhiimsan waa skillska xirfadaha kala duwan marka si aad ganacsi u bilowdo hayskihii ficil laakiin marka hore shaqeeya waa mid shaqaale soo noqo si aad shaqaale noqoto waxaad u baahan tahay in adiga loo baahdo xirfadda aad leedahay waxyaalaha ka saacidi karayana waxa weeyaan inaad yacni go'aan la timaado inaad waxa weeyaan aad barato tusaalahaan kale teknolojiyada inta aad loogu baahan yahay haddii aad barato waxyaalaha teknolojiyada la tacalluqa yacni application development oo kale iyo waxyaalaha la tacalluqa cyber security iyo waxyaalahaas koorasyo fudud baad heli kartaa dhan kale xirfadii gacanta kale kamid ah oo yacni waxa kamid ah xirfadii kale sida yacni xirfadka yacni kamaradaha oo kale allahumma salli ala maxamed plumbing iyo kale xirfado aad u fara badan baa jira inuu ka khashaafno in aynu barano taasoo naga talo markii miidaana aynu ogaano inay yihiin waxaynu lacag badan ku samayn kari lahayn marka inuu qofku value sameeyo value-gana waa inaga sheegno inuu xirfado kala duwan yeesho oo weli xirfadaasi ay xirfado kala duwan yani multiple skills waynu baran karayaa qodobka ku xiga waxa weeyaan waa inuu qofku dhisi karayaa dabcigiisa waa inuu dhisi karayaa tusaalahaan kale dad dhaqankiisa waa inuu dhisi karayaa iyo dad la xiriirkiisa awooddu dadka la xiriiri karaya waan dareemi karaa qofku markuu arday yahay in dadyagu qaarkood aanu la xiriiri karin baan la saaxiib karin baan la joogi karin laakiin waxaad isku daydaa in aad ka ag dhawaato qof kasta oo kaa horeeya oo yacni ku soo dhaweyn karaya adiga laftigaaga oo qofka dhalinyarta inuu ka baqa laga yaabaa qofkaasi dee waa professor amba qofkaasi wiiga aqoon saraya amba wiiga dhaqaale saraya amba waxa weeyaan wiiga magacaweyn yahay laakiin aad eegto mar kasta in qofka kaa horeeya uu wax kugu kordhin karaya adiga aanu kaliya kugu kordhinaynin dadka kaaga dhadhow amba asxaabtaadaasi waxaan aad yacni idinkula talinayaa inaad samaysataan asxaab idinka horeysa aydan ku qancin in asxaabtaas ku fikirka tihiin waayo kuwa laftigooda wax badan iskuma kordhinaysaan qodobka u dambeeya waxa weeyaan inaad doorato righteous teamka tusaalahaan kale dadkii allahumma salli ala maxamed haddii aad shaqo aad sameynaysaba inaad doorato dadkii kula shaqeyn lahaa dadka ugu wanaagsan ay noqdaan dad adiga kaa skills badan ay noqdaan dad adiga kaa caqli badan ay noqdaan inta badan waynu ka baqanaayo waxaynu nidhahnaa يعني ما بين قف نجاح بدنا بين السيلز بدنا لكن بيزنس كاغو بين يدي إن كيس البيزنس كلاه يسبب ودون سنة البيزنس كلاه وأنت كاسكاه رأي وين يديك كوري إكريه نقدان قدر كل ده ميكو سوق جبين يا واحد ويانا نسينا يا هكون مشغولين وحرشة توسكو كرياتا لكن واحد تقول يعني إن بارت تايم شغل قطعان إما كدنيار بيتي واحد بدل لأني كمان بعنا هذه جامعات كتير بس كده سكولز كتير لكن وقت ما تروح بدل لأني كمان بعنا دهنا إدوسن دهنا بيل لأني كنا بدهنا بحافظه يعني إما كيديك واحد يكون على سبعة يديك واحد يكدوني دونتو مركا إما كسيا تأوسي بستوى وأنا شقة بلاش أو كشقة أنت شيء بقى يعني هذا واحد جايبه مركا جامعات كبعض لنا إنتين كان أنا دوارك بقول حوين أنا دوارك أو يعني العقد دونيس لكن ما أنت إن إنتين كسي شقة بلاش كشقة صار أديك لبش شيء كتير دونتها شيء كتير دونتها واحد يعني هو واحد سامي سنت تهدد فربنا وهذا يتولى يجلف تقول واحد بدنا كاس عنا ضرب كلام أنا وين أتبرته حرفدك اللي دونات كبران دونتها أدون هاتسنتين qofkan su'aasha weydiinaan qofka raba inuu ka jawaabo waxaan ka codsan lahayn marka soo istaago si marka su'aasha uga jawaabo isla markaana ay aqoon-yahanadu idinka uga jawaabaan daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena dhalinyarada iyo ganacsiga oo caawa ka socday hoolka Soonyo
barnaamijkan oo ka soo qayb galeen barbisooro iyo dhalinyaro aqoon-yahan aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinaa siday waqtigooda qaaliga noogu soo horeen barnaamijkan waxaad ka daawan doontaan biga Sam News TV oo kala socon doontaan beritoole casarka ama habeenimada tan iyo tan barnaamij noocan oo kala ku kulmi doono xalqiga tagana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh